warbixintan waxaan ku eegi doonaa muxuu yahay cudurka lagu arkay Kenya ee laga baqayo inuu ku faafo dalalka Bariga Afrika. Kenya ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee furuqa daanyeerka oo laga helay qaybta koonfur bari ee dalkaasi oo xadla Tanzania. Viruskan ayaa laga helay qof ka soo baxay dalka Uganda una socday Rwanda isagoo sii dhex marayay dalka Kenya. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in isdhexmarka aadka u sareeya ee bulshada Kenya iyo qaybo kale oo dalalka bariga bulshada ka tirsan oo khatar ku yahay inuu cudurkan ku faafo gobolka, waxaana jira walaac sii kordhaya oo ku aadan in nooca cusub ee dhimashada sababa uu ku faafo Bariga Afrika. Kiiskan ayaa sidoo kale laga soo sheegay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Mpox oo afka qalaad markii hore loo yaqaanay furuqa daanyeerka ayaa xanuun uu sababo viruska monkeypox, waxaana lagu kala qaadaa taabashada qofka qaba xanuunkan, waxaana sidoo kale la isugu gudbin karaa neefta. Calaamadihiisa waxaa ka mid ah nabaro yaryar oo jirka ka soo baxa, dildilaac afka iyo sidoo kale xubinta taranka. Caadi ahaan uu iska reystaa qofka iyadoo aysan wax dhibaato ah soo gaarin muddo 2 ilaa 4 toddobaad gudahooda. Si kastaba, kiiska adag ayaa u baahan daweyn gaar ah. Astaamaha ugu horeeya ee lagu arko bukaanka uu ku dhaco viruskan monkeypox waxaa ka mid ah qandho, madax xanuun, murqo xanuun, dhabar xanuun, qarqar iyo daal, sida sheegtay waaxda badqabka iyo arrimaha caafimaadka dalka Britain. Waxaa kaloo astaamihiisa ugu horeeya ee lagu arki karo bukaanka uu ku dhaco viruska monkeypox ama furuqa daanyeerka ka mid ah dhabar xanuun, qarqar iyo sidoo kale daal fara badan, sida ay sheegeen cilmi baarayaasha. Finan ayaa bukaanka ka soo bixi kara, intooda badan waxay ka bilowdaan wejiga kadibna waxa ay ku faafaan qaybaha kale ee jirka. Finanka ayaa isbedela, ugu dambeyntiina waxa ay yeeshaan qalfoof kaas oo marka dambe soo hoobta. Qofku waxa uu ka qaadi karaa qof qaba cudurkan, waxa lagu kala qaadi karaa taabasho. Neefsiga wuxuu u gudbaa indhaha, sanka ama afka. Waxa kale cudurkan laga qaadi karaa qofka marka uu qof taabto xayawaanka uu ku dhacay viruskan sida daanyeerka, jiirka iyo dabagaalayaasha. Viruskan waxa uu ka mid yahay viruska ka dhasha busbuska, inkastoo uu xoogaa daran yahay. Khubaraduna waxay sheegeen in halistiisu ay tahay mid sahlan. Waxaa cudurkan inta badan lagu arkay meelo fogfog oo ka mid ah bartamaha iyo galbeedka Afrika oo u dhow kaymaha ku yaala halkaasi. Waxaa jira 2 nooc oo viruskan oo laga soo sheegay galbeedka Afrika iyo Afrikada Dhexe. 2 ka mid ah bukaanada cudurkan qaba oo horey loogu arkay dalka UK ayaa ka soo safray dalka Nigeria. Sidaa daraadeed waxay u badan tahay in ay la ildaran yihiin nooca viruska, gaar ahaan kan galbeedka Afrika, kaas oo ah mid fudud inkastoo aan weli la xaqiijin. Kiiskii saddexaad waxa uu ahaa shaqaale caafimaad oo la sheegay in viruskan uu ka qaaday mid ka mid ah bukaanadii uu daweynayay. Ma jiro wax dawo ah oo loogu talagalay viruskan monkeypox, laakiin waa laga hortagi karayaa in uu fido ama uu ku faafo bulshada. Tallaalka ka hortagga busbuska ayaa la xaqiijiyay in 85% uu waxtar u leeyahay ka hortagga viruska monkeypox. Mararka qaarkoodna waa la adeegsan karaa tallaalkaas. Viruskan monkeypox waa caabuq naadir ah kaas oo dadka badankiisu ay ka soo kabtaan dhowr toddobaad gudahood, sida ay sheegtay waaxda qaranka ee arrimaha caafimaadka ee dalka Britain marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano NHS. Warbixinta maanta ee aan uga hadlaynay muxuu yahay cudurka lagu arkay gudaha dalka Kenya ee laga baqayo inuu ku faafo guud ahaan dalalka Bariga Afrika. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu warbixintan mid lamid ah u kulmi doono. Nabadgelyo.